أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. markii aan dib indhaha isku geliyay ee aan ku noqday hurdadeydii bilaariyada ahayd, telefoonkii ayaa dhawaaqay. Haddana waa isla nambarkii uun. Haddana waxaaba ay noqotay fariintii: waa cajiib, waxba ha isku mashquulin inaad garato ruuxdan kelinimada joogta, iyada lafteeduna ku garan mayso, laakiin waxaan doonayaa inaad noqoto saaxiibkayga. Waxaa la yidhaa magacayga Maryan Cawad, adiguna ma ii sheegi kartaa magacaaga? Intaasay ku soo gabagabowday fariintii. Waan yaabay, hurdadiina way iga duushay. Waxaan u holaday inaan ka jawaabo su'aashan si buuxda. Magacayga waxaa la yidhaahdaa Jamaal. Si aan fursaddan hadalka furmay uga faa'iidaystona, waxaan u raaciyay: sidee baad ku soo heshay oo aad ku dooratay nambarkayga, oo aad weliba xilligan iigu soo diraysaa fariimaha? Mahadsanid ayay igu tiri Jamaal. Aad baan ugu faraxsanahay inaan kula kulmo. Waxaan nambarkaaga ku helay. Waxaan isku celceliyay 2 nambar ee u dambeeya telefoonkayga, waxaanan ku daray nambarka 13 oo ay dadku inta badanba ku sheegaan nambarka nasiib darrada. Sidaas ayay kaga soo jawaabtay iyadoon iskuba lurin su'aashaydii.